maanta waxaan ka hadlaynaa greenhouse system oo ah beeraha casriga sababaha greenhouse aan u doornay waxaa ka mid ah inaan isku dheelitirno temperature-ka waraabka iyo cudurrada maanta waxaan xoogga saaraynaa yaanyada markaad beeraysid waxaa u baahan tahay abuur tayo leh waxaa u baahan tahay media oo laga sameeyey qumbe la khamiiriyey oo la shiiday oo lagu daray digada si nafaqo aad uga hesho sidoo kale waxaa u baahan tahay geedka lagu xanaaneeyo ama nursery-ga iyo biyo halkii god waxaa gelinaysaa hal seed saasaa meesha ugu beeraysaa meeshaan waxay xanaaneynaysaa dalagii inuu meesha si wanaagsan ugu koro waxaan beeranay abuurka la yidhaahdo ana F1 oo abuur wax soo saarkiisa uu aad u badan yahay markii aad intaas samaysid oo nursery ku diyaarisid waxaad biyo siinaysaa subaxdii hore markii 12 saac sidoo kale waxaad biyo siinaysaa galabkii adoo ku waraabinaya jalmadda muddo 23 maalmood ama 25 maalmood inta kadib waxaad ka soo saaraysaa meesha ay ku xanaaneysay oo aan hadda ku sameeyay nursery-ga waxaa geenaysaa beerta waxaan ku sameynaynaa transplanting oo abqaalid aan sameynaynaa muddo 25 bil kadib marka beerta ku soo wareejisid technology cusub oo qaybta waraabka waxaan sameynaa drip irrigation oo ah in geed walba si siman uu helo biyaha marka tubadan meesha dhex qaadayso waxay geed walba gaarsiin doontaa biyaha ayadoo ka imaanayso haanta markii beerta aad keentid geedkii drip irrigation-kaaga ugu samaysan yahay ama waraabkaagii waxaa sameynaysaa waraab oo daily ah maalin walba subaxiina 30 daqiiqo galabkiina 30 daqiiqo oo fuusto waxaad dhiganaysaa oo 1 litir ah 500 subaxii ku shubaysaa 500 waxaa ku haysaa galabkii 45 bari kadib geedkii wuxuu gaarayaa heer uu xoogaysto waxaa sameynaysaa caleemo waxa u baahanahay in laga jaro oo caleemaha qalalan sidoo kale xarig in lagu xiro oo teknolojiyada cusub loo adeegsado xariga marka waxaa yaanyadii beerta caadi lagu beerayay yaanyadan isku mid maaha tan way dheeraanaysaa in marka xariga lagu xiro ayuu u baahanahay 45 bari kadib wuxuuna keenayaa ubaxana in la ilaaliyo geedka markuu keeno ubaxa oo la gaaro heerka ubaxa muddo 45 maalin kadib lagu sameeyo staking oo lagu xiro xariga wuxuu maalintaas bilaabayaa inuu mirihii keeno oo mirihii dhalo waxaa la gurayaa maalinta 8aad 3 bil ay ka dhimantahay 10 bari ilaa muddo 6 bilood waxaa la gurayaa yaanyada beerta ku taalo marka qaabkaas u shaqeeya greenhouse technology-ga waana qalab wax weyn ku soo kordhiyo wax soo saarka dalka geed walbo beerta ka mida waxaa laga filinayaa inuu soo saaro 10 ilaa 15 kilogram oo yaanya waxaan loo fiirinayaa abuurkaaga